asalaamu calaykum waraxmatullah soo dhawaada dhammaan akhyaarta ku xiran barayga bulshada waxaa gaab nooga yimid ama naga kala go-ay muuqaaladii aan kasoo gudbinayay magaalada baardheere ee aan tegay asbuucyadii lasoo dhaafay facebookgayga ayaa lasoo weeraray waxaana dhacday in la ribood gareeyey ma garan karo aniga waxaan galabsaday kolley hadda waxaa alxamdulilah yaa inaan wax soo boosti garayn karo welise ciladihii waxba igu sii dambeeyo oo advertisementiska qaybaha ah ama adiska ama boostingka waxba ma samayn karo restriction ayaa iga saaran marka injineerada IT-ga waa ka codsanaya inay iga caawiyaan anyway hadda waxaan soo boosti garayn karaa oo ummadii waxbaan la wadaagi karaa marka waxaan rabaa halkeedii inaan ka sii wado muuqaaladii aan ka soo duubayay ama aan ka soo gudbinayay magaalada baardheere waxaan doonayaa 3 qodob oo muhiim ah inaan dul istaago wixii aan ka gaaro insha Allah taala ama wixii aan ka garto qodobka koowaad waxaan rabaa inaan ka hadlo taariikhda buundada taariikhda ama heerarka ay soo martay sidoo kale waxaan tilmaami doonaa muhiimadda ay leedahay buundada baardheere ay lahayd ee hadda gooday waxaan kaloo tilmaami doonaa insha Allah taala isxilqaanka ama gudiyada wax aruuriyay dibad iyo daakhilba localka iyo diasporadaba yaan wax ka tilmaami doonaa insha Allah taala tala wixii aan ka galo ayaan ka bixin doonaa haddii aan ku hormaro taariikhda buundada baardheere koow waxaa dhisay dowladdii madaxweyne maxamed siyaad barre allah u naxariisto dowladdii kacaanka ayaa dhistay sanadka markuu ahaa 1978 ama 1978 ayaa la dhisay buundada baardheere muddadaas laga soo bilaabo dhismaheedii ilaa iyo laga imaado dowladdii madaxweyne maxamed cabdulaahi farmaajo wax dayactir maysan helin buundadaas marka waxaa dayactir ku sameeyay dowladda farmaajo Agosto 2020 ama 2020 ayaa la dayactiray qaab dhismeedka buundada hadii aan tilmaamo buundadan waxaa la yiraahdaa ama qaabkay u dhisan tahay waa Paley Bridge waa steel truss يعني buundooyinka ilaa 9 qaybood ayaa loo qaybiyaa qaybo kala duwan bay leeyihiin kuwa sila soo laalaada leh kuwa beam bridge la yiraahdo marka midani waa Paley Bridge af Soomaali wax lagu yiraahdo ma garanayo waana steel truss haddii aan wax ka tilmaamo marka structure-keeda carriageway-ga ama inta uu baabuurku ku socdo ee buundada dhexe ah xilliga ayada ahayd baa design-keedii la sameeyay marka waa 4.5 mitir weeyaan waa soo cabiray marka waxaa jiro laba dhinac oo walkway ah ama pedestrian ah sidewalk labada dhinac oo 1 mitir ah min 1 mitir ah ayaa jiro isbaankeeda ama webiga bilciisa ama dhererka buundada waa 130 mitir weeyaan marka buundada qaab dhismeedkeeda ama structure-keeda waa noocaas laakiin hadda waxaa la dhisaa intaas way ka weynaan doontaa oo waxa u sabab ah traffic flow-ga ama design-kii waaga la sameeyay maanta isku mid maahan yacni inta hadda qof ee baabuur isticmaali karto baardheere iyo waagaas 1978 isku mid maahan marka absolutely isku mid ma noqon doono design-ka waa khasab buundadan in loo sameeyo 2 lane ama 2 carriageway laba baabuur meel isku dhaafi karta inay noqoto hadda marka 4.5 baabuur hal baabuur waaye iskuma dhaafi karaan laba baabuur haddii baabuur ina tare uu soo galo kan kale uu sugu jiray marka hadda design-keeda waxay noqon doontaa maadaama traffic volume-ka uu ka weyn yahay xilliga hore ama demand-ka uu ka weyn yahay xilliga hore hadda marka insha Allah taala waxaan rajaynayaa inuu ka weynaan doono intaas maxaa la jiray waxaana soo galo wado weyn oo main road ka ah Soomaaliya oo dhan ayaa soo gasho marka hadii inta aan kaga gudbo buundada iyo taariikhdeeda iyo structure-keeda strategic location-keeda inaan wax ka tilmaamo marka iyo ahmiyadda ay leedahay yani strategic location-keeda markaan sheego waxa ku bidhaamayso ahmiyadda ay leedahay buundadan waxay isku xirtaa Soomaaliya iyo Ethiopia sidoo kale waxay isku xirtaa Soomaaliya iyo Kenya yani marka muhiimadeeda intaas kugu dhiganba waa buundo isku xirto laba wad 3 wadan isku xirto weeyaan yani waa buundo service-keeda ama waxa weeye link-keeda uu gaarayo wadamada dariska nala Ethiopia iyo Kenya magaalooyinka waaweyn ay isku xirtaan raa markii aan tilmaamo buundadan waxay isku xirtaa Muqdisho Baydhabo Baardheere to Kismaayo yani hadiiba Kismaayo iyo Muqdisho isku xireyso waa caasimadii koowaad ee dalka iyo caasimadii labaad caasimadii saddexaad ee dalka isku xirtaa Soomaa yani Kismaayo waa magaalada saddexaad markii Muqdisho iyo Hargeysa laga soo tago xilliga kacaanka dowladda dhexe inkastoo ay soo galtay magaalooyin kale soo kobcay jiraan
waxay kaloo isku xirtaa muqdisho baydhabo baardheere to ceelwaq ceelwaq iyadana magaalo soomaaliya ku taalo oo cirifka dalkeena ah sidoo kale waxay isku xirtaa muqdisho baydhabo baardheere to garbaharey waa fahmaysaa garbaharey iyadana waa caasimadda gobolka gedo oo isku xirtaa waxay kaloo isku xirtaa muqdisho baydhabo baardheere to luuq doolow yacni degmooyinka ka dambeeya oo dhan ayay isku xirtaa marka waan aad baan uga xumahay buundo sidaas muhiim u ah in weli aan la dayactirin fadlan ka qayb qaado nambaradaas ay tusay waxaad awoodda walaal ku dir marka buundada sidaas muhiimka u ah aad baan uga xumahay in hawsheedii iyo shaqadeedii weli aan waxba laga bilaabin oo design-keedu uusan bilaaban feasibility study uusan bilaabanin dowladda Soomaaliya ay ka jiifto warba aan loo haynin walaalayaal waxaan ku codsanayaa Soomaali meel ay joogaan in la iscaawiyo in buundadaas dhismaheeda qof walba iyo wuxuu awoodo nambarada waa idin la wadaagayaa muuqaalka dhamaadkiisa haddana waa idin la wadaagay muuqaalka dib baad u daawan kartaa muuqaalkan ka horreeyna waa idin sheegay walaalayaal Soomaali way isu gurman jirtay markay musiibooyin imaado fadlan ha laga qayb qaato dhismaha buundada baardheer iyo baardheer iyo maxaa raba iyo boordhuubo labada buundaba laga qayb qaato dhismahooda insha Allah taala haddii halkaas aan kaga sii gudbo marka buundada sidaa muhiimku ah ee magaalooyinkaas waaweyn ee Soomaaliya isku xirto aad baan uga xumahay in dawladdii ayna focus ka saarin waxay ahayd in buundooyinkaas markay go'een buundooyinka gobolka Gedo inuu madaxweynuhu tago madaxweynaha maamul goboleedka uu tago iyo aad muhiim u ah ra'iisul wasaaraha uu xil iska saaro dadka bulshada Soomaaliyeed ay xil qaamaan oo aragteen dawladdeena sida maanta ay daciif u tahay sida maanta ay u taag daran tahay marka bulshadaas ay iscaawiso waxaan garanayaa suuq waaheen markuu gubtay magaalada Hargeysa Soomaalida uu gurmatay baladweyne markii ay fatahaadii biyihii la tageen bulshada waa loo gurmaday walaalayaal bulshada Soomaaliyeed waxaan ka codsanayaa in loo gurmado reer Buurdhuubo iyo reer Baardheere dad masaakiina dad tawaryar dad arday hooyooyin masaakiina meesha ku dayacan oo waxa la wixii ku gudbaan inay iska kala gudbaan dib ay ka qabaan bal imagine ka waran adoo dhakhtar u socdo dhakhtarka duu gaari waayo bukaan dhimanayo dhibaato intee leeg baa dareemaysaa bal ka waran arday iskuulka u socday oo webiga ku dhacay yani waxyaabaha soo arkay wax aad looga naxo weeyaan inta markaan ka gudbo waxaa jira marka gudiyo isxilqaamay diaspora u badan lacag badan aruuriyay 1.5 milyan ka badan in la aruuriyay ayaa soo gaartay gudiyadaas waxay ugu xoog badan yihiin Mareykan ama USA way jiraan wadamo kale ayagana wax aruuriyay oo diaspora Soomaaliyeed oo u badan qurba joogta gobolka Gedo walaalayaal waxaan leeyahay qurba joogtaas waa idin la hadlayaa waxaan ogahay inaad kala tagsantiin xogta waxaan ku helay in team walba lacagii aruuriyeen ayaga ay gacanta ku hayaan walaalayaal waxaa idin ka codsanayaa in lacagaha iyo wax alla waxaad aruuriseen oo dhan la isugu geeyo guddiga dib u dhiska buundooyinka gobolka Gedo ee uu gudoomiyaha ka yahay Professor Bursaliid oo Soomaaliya oo dhan garanayso guddigaas waa guddi hadda sharciyeysan dowladda federaalka Jubbaland shabaab maamulada dhan ka sharciyeysan loona ogol yahay xataa shabaabkay u fasaxeen wax alla wixii buundadaas quseeyo oo waxa weeye gaal iyo muslimba logistic in ay u fasaxeen oo waxa weeye dhulka la soo marin karo wax walba loo baahdo injineerada dhisay ay fasax yihiin marka guddigaas saas dadaalka u bixiyay waxay ii sheegeen muddo 3 jeer ka badan inay la kulmeen shabaab oo waxa ugu dambeynna ay soo fasaxeen marka waxa idin ka codsanayaa in guddigaas la isugu aruuriyo wax alla wixii lacag aad soo aruuriseen intaas ayuu ku saabsan yahay muuqaalkayga marka waxaan rabaa marka maxaa sababay buundada inay burburto dhowr qodob baa aan tilmaamo horta waxaa sababay fatahaad El Niño fatahaad aad u xoog badan ayaa sababtay burburka buundada waxaa kale oo aan dhihi karaa way ka qayb qaadatay dayactirkii oo qaab khaldan loo dayactiray hadda waa u jeedin alwaaxan idin muuqdo wuxuu leeyahay spaces designkii loo sameeyay waa spaces buu leeyahay spaces kaas waa kulli engineerka design ama designka markii la sameeyay waxba lagu consider gareeyay ma ahayn in bir la waayay ma macnaheedu ma ahayn marka buundada flexible bay ahayd oo markii ay sheegay roob imaado biyaha way ka dhex bixi jireen markii dawladdii Farmaajo ay sameeyay dayactirka waxaan leeyahay absolutely lama sameeynin design lama sameeynin feasibility study lama ogaanin xagee baa dayactir u baahan boolasheed dabacsan shab hal mar baa lagu gamaamuday
maxaa la dhihi jiray sheeg birtaas marka ma raba inaan kusii fogaado kulley waxun bay isku dayeen wax wanaagsan bay sameeyeen laakiin adoo wax wanaagsan sameynaya waxaa fiican in wixii la dayactiro qaab qurux badanna loo sameeyo marka halkan waxaan rabaa inaan kuu soo qaatana sawiradan waxaan ka soo dejiyay Google-ka waa wada aad aragteen waa meesha Presterian ka ahayd waa tan ayadoo jabi rabto waa tan ayadoo jabtay marka fadlan Soomaaliya ka qayb qaata nambaradaas ka qayb qaata waxaad awoodo $9 ilaa intaad awoodo fadlan ka qayb qaado assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh